sida aynu la socoynaba Israa'iil ayaa ururnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran meel kasta oo lagu tuunsanaa hub nukleer ah iyo madaxda Iran inay ku jiraan ayaa la beegsaday oo weerar lagu qaaday boqolaal duqeymood ayay Iran fulisay intii uu weerarkan socday waxayna ku naafaysay dhammaan halbowlayaasha dhaqaale hubka nukleerka iyo agabyadii military ee Iran lahayd ee dunida ay sida weyn ugu faani jirtay sanadihii iyo bilihii la soo dhaafay shan waji ama hawlgal oo kiiba qaadanaya duqeymo ka badan 10 oo diyaaraduhu ay ka qayb galeen ayaa la qaaday ilaa hadda diyaaradaha ayaana shidaal ku qaadanaya hawada intii hawlgalka ay ku jireen sida la xaqiijiyay iyadoo diyaaradaha Mareykanku ay qayb ka ahaayeen shidaal siinta diyaaradaha dhinaca Israa'iil intii ay hawlgallada military ee duqeymaha gudaha Iran ay ku jireen Israa'iil waxay ku dhawaaqday inuu ahaa hawlgal najaxay oo laga gaaray faa'iidadii laga lahaa oo ahayd in la soo afjaro awoodda Tehran isla markaana loo dhigo mid ka mid ah weeraradii ugu waaweynaa ee taariikhda lagu qaado dalkaas Iran